بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قرآن كي سوحو كليه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. maanta waxaan idiin hayaa geedka qur'aanka lagu sheegay ee la yiraahdo attiin. Soomaalida qaar waxay yiraahdaan barde. waa kana geedkan tiitiinka ma aha, waa tiin qur'aanka lagu sheegay. waa geed nafci badan leh, caafimaadku u fiican yahay. waxaa ka buuxo calcium, potassium, sodium, magnesium oo kulli caafimaadka u fiican. waa antioxidant, waxay ka hortagtaa shayquuqada ama dadka dhaqsada waayeelka noqonayo. waxay u fiican tahay wadnaha. maxal dhahay marka alxamdulillah waa geed maasha Allah waa kana jiridkiisana. marka maanta waxaa idiin sheegayaa qaabka ugu fudud ee loo beeri karo. geedkan waxaa loo beeri karaa si sahal ah. Soomaaliyana wuu ka bixi karaa. waxaad soo qaadanaysaa laantan, jiriddan yariista soo qaadanaysaa, intaa ka goonaysaa, ka bacdi dhulkaad qodaysaa. markaa dhulka qodid ka bacdi geedkaana dhex gelinaysaa, waa daboolaysaa, waana waraabinaysaa. waa geed aad u sahlan sida loo beero, waxaana laga beeraa laamihiisa. sida aad la socotiin, Allahu almusta'aan, mirihiisa kuma jiraan lafo. soo mirihiisa haddii aad ka beertid kuma soo baxayo noocyada badankood, ilaa noocyo yaryariis ma ogiye ma soo baxayo. qaabka ugu habboon waxa waa inaad goosatid laan hal jir ama 2 jir sanadkii hore laamihii ahaa. kuwaan cuseebka soo bixi maayaan. waa inay lahaataa calaamadahaas haddaa u jeedaan oo cadcadaanka ma aragtay. magacyo badan ay leeyihiin. marka waa kaas Soomaalida u sheegayaa beeralayda Soomaaliyeed, geedkan waxaa la siistaa 4 xabo £1 $1 iyo bar. waa 4 xabo noocyadaas la siistaa. Soomaaliyana wuu ka bixi karaa. marka hala beerto, caafimaadkan ha loo beerto, maxal dhahayay nafciga oo uu leeyahayna ha loo beerto, guryaha ha lagu sharaxdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.